بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بقى تبارك وتعالى مهدنا maanta iskale isagayna tahay xilli walbiya xaalad walbaba inaan u mahad celino calaa nicamihi wa aalaa'ihi alatii laa tucad وكماله تبارك وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. إلهي تبارك وتعالى أي نزهان وأمانا انت كذب وحان إلهي تبارك وتعالى ويديسان لنا باللوغة كلمة إنه الله تبارك وتعالى إن قصر فيه مصائب تنصعته كارهان حنون كان أدومك runtii meel walba saameeyey, in badani u dhimatay, in badani u jiifto, in badilana ay cabsidiisa qabto. ilaahay tabaaraka watacaala haynaga sarfiyo, wixii muslimiina u dhintayna ilaahay tabaaraka watacaala ha u naxariisto, shahaado allah uga dhigo. Inta u jiiftana ilaahay tabaaraka watacaala ha ka samata bixiyo, ha ka kiciyo. inta caafimaadka qabtana ilaahay tabaaraka watacaala ha ka ilaaliyo. intaa kadib koronaha iyo shareecada marka la yidhaahdo, macnaheedu waxa weeye xanuunkan iyo waxa shareecadu ay ka qabto ama waxaynagaga aadan marka la fiiriyo shareecadeena. ka tasmiye ahaan, ka magac ahaan, koronaha waa magac loo bixiyey xanuunkan. gaaladu kolley muxuu ahaaye meelaha uu ka dilaacay iyo abtirkiisa iyo faamilkuu ka tirsan yahay iyo meelaha unbay ka keeneen, laakiin shareecadu waxay u taqaanaa wabaa. waa cudurada gudbo ka mid ah dadka laaya, muxuu ahaaye caamka ah oo aan cid khaasa ku ahayne caam ah. cudurada noocaas oo kalena awbia la yidhaahdaa ama wabaa. cuduro badan baa halkaa gala. daacuunka ka mida, judaamka ka mida, cudurada kaleete kalooraha ka mida. wabaaga cudurada caamka dadka laaya ayaa wada gala. taas waa dhanka tasmiyada iyo magaca. walaa mushaaxata fi listilaax. magac bixintu inta badan wax mushkilad weyn ma aha. taa waa midda labaad u baahan runtii aragtida shareecada iyo diinta marka la fiiriyo. sababta xanuunkan keentay maxay tahay? faylasuufiyiinta iyo nin walba isagoo mabdi-iisiyo wuxuu rumaysan yahay ka duulaya ayuu sababta meel u saaraa, laakiin sababku asbaab kaluu sii yeelan karaa oo usii noqon karaa. kitaabka qur-aanka markaan u laabano iyo sunnada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam, xanuunkani wuxuu ka mid yahay masaa'ibta guud ee allah tabaaraka watacaala uu keenayo, ama hal noqdo masaa'ibta guud ama khaaska xataa, sida mathalan abaaraha dhacaya, dhulgariirada dhacaya, duufaanada dhacaya, hawada isbedeshay iyo kulka, muxuu ahaayey cudurada, waxaas colaadaha, waxaasoo dhan waxaa laysku yidhahdaa masaa'ib baa laysku dhahaa. marka masaa'ibtaasi fiqiga saxda iyo fahamka saxdii waxa weeye waxay ku yimaadaan ilaahay tabaaraka watacaala baa keena oo iskama yimaadaan. xataa hadduu makhluuqaadka mid ka mida sabab uga dhigo, oo xataa bini aadam ama basharka mid ka mida uu sabab u noqdo musiibadaasi, haddana ilaahay baa keenay tabaaraka watacaala. maxaa yeele wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun. ilaahay isagaa idin abuuray, idinka camalkiina iyo wixii ka dhashana isagaa abuuray rabbi tabaaraka watacaala. marka waxaan leenahay masaa'ibtani ilaahay baa keenay tabaaraka watacaala, iskama imaanin, cid kalena ma keenin, ilaahay baa keenay tabaaraka watacaala. allah hadduu keenayna sabab bay leedahay, qur-aanku inoo sheegay.
aayado fara badanna rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku sharxay oo ah in ay waxyaabahani ku imaanayaan bini aadamka fasaadkiisa iyo xadgudubka uu sameeyey iyo dunuubta ka dhacday iyo jidkii ilaahay ugu talagalay noloshiisa oo uu ka leexday. masaa'ibtani waxay ku imaanaysaa waa waxa bini aadamku kasbaday. mas'aladana walow waayo dhoweyn arkaya wadaaddo muran gelinaya oo aan aada ula yaabay, haddana maca daalika aayada aan tiro lahayn oo qur-aanka ka mida buu ilaahay ku qeexay tabaaraka wa tacaala, oo ay ka mid tahay aayadda rabbi leeyahy tabaaraka wa tacaala maa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum. yacni waxa weeye ayi musiiba noocay dooni ha ahaato, saasay aayaddu cabirtay, waxay ku imaanaysaa waxay gacmihiinu shaqaysteen idinkaas sabab u ah. waxaa kaloo rabbiga yidhi tabaaraka wa tacaala dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabad aydi nnaas. yacni fasaadka bad iyo beriba ka muuqdo meel walba camimay waa waxay bini aadamku kasbadeen, bima kasabad aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu. dembigii ay galeen iyo khaladkaay galeen cuquubadiisa qaar ka mida in la dhadhansiiyo waayo. saasuu qur-aanku u tibaaxayaa, u qeexayaa. ummadihii hore cuquubaadka ku dhacay iyo masaa'ibta ku dhacaysa qur-aanku markuu fasirayo ee uu sababta qeexayo wuxuu u celinayaa dunuubtoodii khaladaadka ay galeen. allana tabaaraka wa tacaala addoommadiisa iskama maago, ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo, walaakina annaasa anfusahum yadlimuun waaye. iyagaa isdulminaya oo naftooda dulminaya oo khaladaad gelaya oo masaa'ibtan sababsanaya, laakiin allah tabaaraka wa tacaala addoommadiisa ma dulmiyo. allah tabaaraka wa tacaala marka walaalayaal aayado badan buu macnahaasi inoogu sheegay. nabigeenuna sala allahu calayhi waalihi wasalam waa sii caddeeyey. sababtu wax kale ma aha, caalamkan aan joogno xadgudubkiisu meeshuu marayo xataa ummadihii hore laga sheekeeyey maysan gaadhin meesha maanta adduunku marayo, ama akhlaaqdii ama mabaadidii iimaanka ama xuquuqdii rabbi tabaaraka wa tacaala ama xataa xuquuqdii aadamaha iyo makhluuqa kale dulmigiisu meeshuu gaadhay ama maanta uu marayo. muxuu ahay xataa qur-aanku qisasku ka sheekeeyey, tawaariikhda laga sheekeeyey inay soo martay hadda ka hore lama aha, laakiin rabbigeen tabaaraka wa tacaala waa dulqaad badan yahay, addoommadiisana waa u kaadiyaa, waa u seeta dheereeyaa. muxuu ahaaye imlaa buu ku sameeyaa, istidraaj buu ku sameeyaa. markaaba cuquubada kulama soo boodo, laakiin waxoogaa waa loo seeta dheereeyaayo muddaa la daajiyaa, laakiin markuu ilaahay qabto tabaaraka wa tacaala fakan maayaan. dunuubta hadda caalamku uu ku jiro intiisa badan waa tii ummadaha loo baabi'in jiro, loo rogi jiro, iyagoo dhanba cagta la marin jiray. laakiin ummaddan ilaahay baa ugu naxariistay nebigeeda muxameda salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. yacni waxaweye soo saaridda isaga laga soo saaray, ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka kor qaaday cadaabkii kulligeed wada baabi'in lahaa oo muxuu ahaayey kulligeed wada halaagi lahaa sidii ummadihii hore oo kale. ilaahay waa uga naxariistay tabaaraka wa tacaala, laakiin haddana maca daalika cuquubaad meelaha qaarkood iyo dadka qaarkood ku dhacaya waa imaanayaan. taasi marka waxa weye sababta masaa'ibtani u imaanayso, adduunka dhibaatooyinka ka dhacayo cudurkani ka mid yahay. qur-aankaa inoo fasiray, ilaahay baa fasiray tabaaraka wa tacaala, si guud buu ilaahay u fasiray. qur-aanku koroono ma taabanin, laakiin qur-aanku qawaacid guud buu dejiyaa, qur-aanku si guud buu u hadlaa. yacni qawaaciddaa guuday uu dejiyey ayaa waxaa soo gelaya wax kastoo yimid, wax kastoo imaan doona. sidaasaana cumuumka qur-aanka iyo salaaxiyadiisa likulli zamaanin wa makaanin cumuumiyaadkaasuu ku socdaa iyo muxuu ahay cilalkiisa iyo xikamkiisa. qodobka xigaayo wuxuu yahay xanuunkan iyo masaa'ibta la midka ah markii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu keeno xikmadaa ku jira oo allah tabaaraka wa tacaala wax iskama sameeyo, bilaash kuma sameeyo, macno la-aan iskama sameeyo. xikmad baa ku jirta wax kastoo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qadarayo, wax kastoo ilaahay abuurayo, hadday tahay barwaaqo, hadday tahay musiibo, hadday saraa tahay, hadday daraa tahay, wax kasta oo kownka ka dhacaya xikmad baa ku jirta. laakiin
marar badan addoomadii masaakiin weeye, xikmaddii rabbi ee ku jirtay shaygan ma haleeli karaan. marar badanna xikmaddii waynu helaynaayo waa laynoo caddayn ama waynu fahmaynaa. xikamka ku jira waxaa ka mid ah ee laynoo sheegay masaa'ibtan dhacaysa in addoommadan kibray ee ilaahay ka xadhig furtay ee leexday ee muxuu ahaayey meel xun gaadhay, addoommadaas in la soo celiyo oo lagu soo celiyo jidkii ay ka baxeen, oo lagu soo celiyo wanaaggii ay ka tageen, oo lagu soo celiyo inay dib isugu noqdaan oo dib u xisaabtamaan, ilaahayna tabaaraka wa tacaala u tadarucaan oo isu dhiibaan. waa ka rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadaracuu walaakin qasad quluubuhum. markii baaska ilaahay ku yimid maxay u tadaruci waayeen? maxay ilaahay isugu dullayn waayeen? maxay ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu khushuuci waayeen? maxay ilaahay ugu soo noqon waayeen? allah tabaaraka wa tacaala sidaasuu leeyahy. aayad kaleeta rabbi tabaaraka wa tacaala isla macnaha waa ku caddeeyey walaqad arsalnaa ilaa umam min qablika faakhadnaahum bilba'saa'i waaddaraa. dhibaato xoolahoodii gaadhay iyo mid jidhkoodii gaadhay baan ku qabannay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala lacallahum yatadaracuun, say ilaahay ugu tadarucaan oo isla weynanka iyo kibirka iyo waxaynan ahayn oo ismoodeen si looga soo celiyo oo loogu soo celiyo addoonnimadoodii oo loogu soo celiyo xaqiiqadoodii yaa allah tabaaraka wa tacaala baaskay dhibaatooyinka ugu qabtay. aayaddii aynu markii dhow akhriyna waa tii ahayd yacni waxa weye dahara liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun, si ay u soo noqdaan, khaladka uga soo laabtaan, isu xusuustaan. aayaddii kale waa tii rabbilah tabaaraka wa tacaala awalaa yarawna annahum yuftanuuna fi kuli caamin maratan aw maratayn huma laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun. yacni sanadkii mar mise laba goor baa la imtixaanayaa, masaa'ibtaasaa lagu imtixaanayaa, kadibna ilaahay uma soo noqonayaan, mana xusuusanahayaan oo yacni dhibkani xaqiiqadiisa inay fahdaan iskuma dayayaan iyo wixii looga baahnaya xikmaddiisa inay helaan. sidaas daraaddeed xikamka ku jira waxaa ka mid ah in addoommada lagu soo celiyo addoonnimadoodii, laga soo celiyo meesha ay gaadheen, waxay ismoodeen, kibirka in laga soo celiyo, lacallahum yatadaracuun, inay ilaahay u soo laabtaan tabaaraka wa tacaala. inay muxuu ahaayey addoommada qaarkood masaa'ibtaa dhacaysay cadaab iyo cuquubay ku tahay. oo nabigeenu sala allahu calayh waalihi wasalam markuu ka hadlayay daacuunka waa kii lahaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, daacuunku wuxuu ahaa cadaab ummado idinku horeeyey ilaahay ku cadaabay, dadka muslimka ana naxariis buu u yahay, ruuxa muuminka ah naxariis buu u yahay. oo wuxuu naxariis ugu yahay markuu meesha uu daacuunku ku dhacay u sabro oo uu ku sabro, ajirna waa ka helayaa, hadduu ku dhintana shahaaduu qaadanayaa, intaa uu sabrayana ajir shahiid buu leeyahay. marka naxariis baa dhankaasuu ka yahay. dadka qaarkoodna naxariis iyo dembi dhaaf buu u yahay, dadka qaarkoodna cuquubo iyo cadaab iyo dharbaaxuu ku yahay. sidaas daraaddeed baa sida saxdaa waxa weeye masaa'ibtani uu xanuunkani ka mid yahay, mar waa ibtilaa oo waa imtixaan oo addoommadiisuu ilaahay ku kala saarayaa, mar waa cuquuba oo ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisaasi uu wax ku xusuusinayaa oo la doonayaa inay isgartaan. ilaa waxa weeye addoommadii markii barwaaqo loo daayo oo nicmadaa iyo barwaaqadaa uun ay ku jiraan way kibrayaan, waxay xaqiiqadii bay ka baxayaan, waxaynaan ahayn bay ismoodayaan. xikamka ku jiray ka mid tahay dalaalaadka ay leedahay xanuunkani khaasatan iyo cudurkan coronavirus. waxaa ka mid ah wuxuu tusay aadamihii, wuxuu tusay ilaahay tabaaraka wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisu intay la eg tahay. wax ka midaa la tusay, aaya min aayaati illaahi waaye. adduunkii oo kibray oo isla weynaaday oo wuxuusan ahayn sheegtay oo muxuu ahaayey meeshii ugu dambeysay maraya oo siduu u dhaqmayo iyo siduu u hadlayo moodayba inuu ilaahnimo inuu sheegtaba qaarkood ay ku dhowaadaan ama ayba sheegteen oo meel yacni maraya
ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqa yarka ee ishu aynan qabanaynin, ee aan la arkaynin, ee aynan qalabkii iyo teknolojiyadii la samaystay aynan soo saaraynin, ee yarka abuu ilaahay adduunkii ku soo daayay tabaaraka wa tacaala si tabartooda loo tuso. si kale haddii loo dhaho waxa weeyaan war meel kasta haddaad gaadhaan, awood kasta haddaad yeelataan, ciidamo kasta haddaad samaysataan, caafimaadka iyo teknolojiyada haddaad meel kasta ka gaadhaan, haddaad awood kasta yeelataan, ilaahay tabaaraka wa tacaala waxba kuma aha inuu idin baabi'iyo. makhluuq yar oo daciif ah oo aada u tabar daran ayuu ilaahay ku soo diray tabaaraka wa tacaala adduunkii. markaasaa ciidamadii isku dhex yaaceen oo nucleerkii wixii la sheeganayey oo satellite-kii kor iyo muxuu ahaay dayixii la aaday oo waxyaalihii intaa la diyaarsanayey oo caalamkii kala go-ay oo kala carar ka dhacay. maxaad u malaynaysaan xanuunkani hadda waxa weeye dadka uu dilayaayey marka la fiiriyo sida uu u faafaya, dadka uu dilayaayey ma badna, sida faafidiisoo kale uma badna. maxaad u malaynaysaan haddii xanuunkaasi ilaahay ka dhigi lahaa mid ruuxu qabtaba dilaya oo lagaba kacayninba hadduu ka dhigi lahaa, ma cid baa isfiirin lahayd? waa la kala carari lahaa, nin walba wejigiisa u carari lahaa, nin walba waxa weye nafta orod bay kugu aamintaa buu dhihi lahaa. walaa mid madaxa walaa mid dowlada. hadda isagoo 5% 4% dadka dilaya ayaad arkaysaan caalamka suu isugu dhex yaacay. haddii awood intaa ka badan ilaahay u isticmaala ka warraba. ilan ilaahay waa awoodaaye tabaaraka wa tacaala, oo wuxuu ilaahay maago kun unbuu leeyahay, wax walba waa ahaanaya, wax ilaahay ku adag ma jiro. sidaas daraaddeed yacni ilaahay oon qudradiisa iyo awooddiisa rumayslayn ayaa wuxuu addoommadiisa tusayaa kibirkooda iyo isla weynanka iyo isqaadqaadkooda inuusan wax jiro ahayn. awooddiisii wax ka miduu muujiyey, waana in yar oo muxuu ahay aada iyo aada u yar ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala wax ku tusaaleeyey. ayaduna waa darsi la doonayo annagana iimaankeennu inuu ku xoogaysto, ku kordho, kuwa kalena inay ilaahay ku ictiraafaan oy ku qiraan. caalamku maanta wuxuu gaadhay inuu ilaahay inkiro. caalamku maanta wuxuu gaadhay inuu su-aala iska weydiiyo ilaahay jiritaankiisa. caalamku maanta wuxuu gaadhay wixii ilaahay kitaab uu soo dejiyey iyo wuxuu rasuul soo diray iyo malaa'igtiisii in kulli la inkiro. caalamku wuxuu gaadhay in maadadiiyo adduunyada la caabudo. caalamku wuxuu gaadhay in wax alla wixii khayr iyo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan iyo tawxiid iyo wixii ilaahay jeclaa in lala dagaalamo. wixii xumaa ee shaydaan jeclaana la taageero oo muxuu ahay loo noqdo muxuu ahay garab iyo gaashaan loo noqdo. sidaas daraaddeed ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa ballaadhan ayuu addoommadiisa wax yar ku tusaaleeyey. waa haddii lagu waana qaadanayo oo wax lagu qaadanayo waay. intaa kadib walaalayaal, dilaalaadkaas iyo asbaabta iyo xikamkaasi wax ka mid a aan tilmaanay markii laga yimaado, su-aashu waxay tahay haddaan lahay annaga muslimiinta seen ula tacaamulaynaa xanuunkan, musiibadan seed ula tacaamulaynaa, seen ula dhaqanaa, iyada iyo masaa'ibta kaleba ku dar. waxaynu leelahay awalan waxaynu ula tacaamulaynaa biاtawakuli cala allahi tabaaraka wa tacaala. ilaahay baan tala saaranaynaa, qalbigeennu ilaahay buu ku kalsoonaanayaa. wixii inugu dhacay waa wax ilaahay qoray, wixii aan inugu dhicinna ilaahay baan qorin. lan yusiibanaa ila ma kataba allahu lana huwa mawlaana wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun. mu'minku ilaahay buu ku kalsoon yahay, wuxuu rumaysan yahay kownkan ilaahay baa ka taliya. waxa dhacaya horuu u qornaa, waxa dhacaya ilaahay horuu u ogaa, waxa dhacaya ilaahay wuxuu ku dhacayaa mashiicadiisa iyo iraadadiisa kowniga ah. wax kastoo dhacaya ilaahay baa abuuraya tabaaraka wa tacaala. mu'minkuna wixii ilaahay u dooro ayay maslaxadiisu ku jirtaa. waxyaalo fara badan ood adigu isleedahay amaa dhibi kuugu jiraa, rabbigaabaa maslaxadaada og. sidii ilaahay kuu dooray ayaa khayrku ku jiraa. alkhayru fiima اkhtaarahu allahu lak. sidaas daraaddeed waxaan ku kalsoon lahay rabbigeen tabaaraka wa tacaala. qalbigeenna ilaahay buu ku kalsoon yahay. rabbi tabaaraka wa tacaala baan tala saaranaynaa, waa arrimaha naga u dhiibanaynaa oo aan ku kalsoonnahay.
واتلا سارشدا ويا الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه تبارك وتعالى وحا توكلك كمد يتلا سارشدا وقيبت لبادا intaana taa ka gudbin mabda'a ilaahay ku kalsoonidiisa iyo qadihiisa iyo qadarkiisa inaad rumaysaa wuxuu daawo ka yahay cudur ummaduhu maanta u baaba'ayaan caalamka in badan oo ka mid a oo ah wax yaroo musiiba hadday timaado inay argagax iyo laxdin iyo walbahaar iyo stress iyo isla hadal iyo inay muxuu ahay noloshii ku cidhiidhiyanto laakiin mu'minku ma laha masaa'ibtaa dhacaysahay waxa weeye ilaahay uu tala saaranayaa tabaaraka wa tacaala qadihiisa iyo qadarkiisuu raalli ku yahay oo rumaysan yahay taasi waa qodob waa daawo weyn oo mabda'a iimaanigii uu keeno wey dadka qalbigoodu iimaankaasi ku jirana yacni waxa weeye masaa'ibtani inta badan si fudud bay kaga gudbaan culays badan iyo walbahaar iyo isla hadal iyo midna kuma keento qodobka labaad oo ka mid ah tala saarashada iyo tawakulka ka mid a waxa weeye akhdu alasbaab almubaaxa asbaabta shareecadu inoo bannaysay diinteennu inoo bannaysay ee xanuunkan lagaga hortegayo ee xanuunkan lagaga baaqsanayo ilaahay baa wax baajiye ee xanuunkan lagaga taxadarayo waa inaynu qaadanno tawakulkiibay ka mid tahay nebigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam nin baa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow hashayda miyaan dabraa markaasaan ilaahay u tala saartaa mise waan sii daayaayoo ilaahay baan u tala saartaa nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam hasha dabar ilaahayna u tala saara buu nebigu yihi sal alla alay wasalam sababka la imow rabbigaana ku kalsoonow wax kasta oo asbaaboo shareecadu inoo bannaysay oo aynu wax ku gaadhayno ama dhib soo socda ama mid jiraba aan isaga ilaalinayno shareecadaa inoo bannaysay ayadana waxay ka mid tahay yani waxa weye tawakulkii bay ka mid tahay leanna tawakulka culimmadu markay qeexayaan waxay yidhaahdaan waa inaad ilaahayna ku kalsoonaato asbaabtana aada la timaado risiq baad doonaysaa shaqayso ka sabraadso ilaahayna ku kalsoonow caruur baad doonaysaa guurso ilaahayna ku kalsoonow wuxuu ku siiyo oo ilaahay inuu natiijada yani waxaweye maamulkiisiiyo siduu kuu maamulo raalli ku ahow wahaakada asbaabta la imow haddaad xanuunsato isdaawee haddii xanuun imaanaya ka taxadar yaa daraaddeed baa nabigeenu sal alla alay wasalam xanuunadan gudba oo daacuunka yani mithaal uu u yahay waa kii nebigu laha salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yani waxa weye sidaad libaaxa uga cararayso uga carar waa kii nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh daacuunku hadduu meel ku dhaco dhulkaa uu ku dhacay ha gelina ha tegina haddaad dhulkaa joogtana ha ka bixin waa waxaan hadda loo yaqaana alxajru sixi ay yidhaahdaan macnaha yani karantiilka xanuunada gudba meeshay ku dhacaan in la karantiilo nebi maxamed baa jideeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh walilasaf dad fara badan oo muslimiin ah oo diintooda aqoon badan aan u lahayn waxay moodayaan waxan buunbuunin ay gaaladu wado gaaladu maahe waa looga horreeyey shareecadeennaa uga horreysay nebigeennaa uga horreeyoo jideeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in xanuunada laga taxadaro isagaa wuxuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam xoolo jiran ninka wataay xoolaha fayow yuusan ku dhex darin xoolaha jiran iyo kuwa fayow kala ilaaliya nebigu sal alla alay wasalam macnahaasuu ina leeyahay nin judaam qaba ayaa wafdi nebiga u yimid la socday wafdiga inteedii kale nebigu sal alla alay wasalam uu gacan qaaday oo ballan iyo baycu la galay ninkii judaamka qabay wuxuu ku yidhi meeshiisa isagoo jooga halkaasaanu beeca lagu kugula galay iska laaba buu nebigu uhi sal alla alay wasalam marka xanuunadan gudba qaabkay shareecada ula dhaqantay waxa weeye in laga taxadaro asbaabtii la qaato layska ilaaliyo aan dhulka laysu dhigin aan muxuu ahay shafka loo dhiganin dadka qaarkood walilasaf wuxuu ku leeyahay aniga ilaahay baan tala saartay wax ilaahay ii qorayna waa igu dhacayaa wuxuuna ii qorina iguma dhacahayo sidaas daraaddeed dan kama lihi yani sax maaha ilaahay ku kalsoonow haddana ilaahaygii igu kalsoonow ku yidhi ayaa wuxuu ku yidhi asbaabta qaado asbaabtaa waxaa ka mid a inaynu qaadanno loo baahan yahay in aynu qaadanno taxsiinaadka sharciga ah shareecadu waxaa jirta waxyaale ay inoo jidaysay oo isbitaallo uusan kuu sheegaynin
dhakhtarna uusan kuu sheegaynin, hay-ad caafimaadna aadan ka helaynin, laakiin shareecada aad ka helayso, kana muhiimsan asbaabta kaloo dhan ka muhiimsan. maxay tahay? waxa weeyaan adciyada, inaad ilaahay barido. ilaahay baa wax keena waxna qaada, isagaa ilaaliya. asbaabtan aad arkaysaan hadduu doono ilaahay tabaaraka wa tacaala iyadiyo natiijaduu kala goynayaa. saas daraaddeed inaad ilaahay barido, rabbi tabaaraka wa tacaala aada tuugto. baryadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala sida nebigu sheegay, wax dhacayna ilaahay waa ku qaadaa, wax soo socdana way baajisaa buu nebigu yuri sal alla aleyh wasalam. marka ducadaasaa ka mid ah. waxaa ka mid ah adkaarta subaxdii iyo galabtii iyo habeenkii markaad seexanayso in aad xirsi xidhato. ayadana adkaar fara badan baa halkan ku soo aroorto lagu xirsi xidho. bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi الsamaai wahuwa الsamiicu اlcaliim. allahuma ina nas'aluka alcafwa walcaafiyata. yani adkaartaasi inaad laasimto. ayadana waxaa ku sugan ciddii habeenkii galabtii akhrisata habeenkaa waa la ilaalin. ciddii muxuu ahaayey subaxdii akhrisatana maalinkaa waa la ilaalin. waardi ilaahay baa ku saaran, waa lagaa ilaalinaya waxyaalaha iyaga ah. ayadana waxay ka mid tahay muxuu ahaayey taxasiinaadka iyo asbaabaha la doonayo inaynu qaadano oo masaa'ibtan iyo waxyaalaha dhibaatada leh aynu isaga ilaalino. waxaa ka mid a istikfaarta oo kale, ilaahay inaad dembi dhaaf weydiisato ood badiso istikfaarta. astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah. waxaa xaqiiqaha nusuustuna tilmaantay ruuxba ruuxuu ka istikfaar badan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaashamadiisa waa uga dhow yahay. waxaa ka mid a cibaadaadka aynu samaynayno. cibaadaadku waa xirsi xidh, oo haddaynu mithaal soo qaadano waa kii nabigeenu sal lla alay wasalam, salaada subax ruuxa tukada fa huwa fii dimmati illaah. yani cibaadaadkani yani ruuxa xirsi xidh bay u yihin. waxyaala fara badan baa ilahay kaga ilaalinaya tabaaraka wa tacaala. waxyaalahaasoo dhan aan la nimaadno, muxuu ale dikriga ilaahay, waxyaalahaasi waxyaalo ku waardiyeynaya. waxay kaa waardiyeynayaan cudurada kuwa aan la aqoonin oo dhakhaatiirtu aqoonin, oo sida sixirka, muxuu ahay jinka, muxuu ahaye isha, yani makhluuqaadka qarsoon iyo cuduradan. haddii xataa ay kugu dhacaan qaab laysaga daaweeyaa jira. gaar ahaan waxaan idiin tilmaamayaa nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam markuu jiraday waxaa lagu akrin jiray, isku akrin jiray qul acuuduyada, qul acuudu qul wallah birabbi lfalaq iyo birabbi innaas. khaasatan suuradda birabbi lfalaq suuradaha kale kuma jirto. iyadiyo birabbi innaas nabigu wuxuu yihi sal alla aleyh wasalam wax lagu xirsi xidho oo ilaahay lagu magan galo oo labadaa suuradood la mida maba jira buu nabi sal alla aleyh wasalam. haddaad birabbi lfalaq oo kale hadda u fiirsato, ilaahay baad magan geli. wax kastoo uu abuuray sharkiisaad ka magan gelaysa. coronavirus ilaahay baa abuuray, min shari maa khalaqa buu soo gelayaa. wa min shari gaasiqin idaa waqaba, waa habeenkii goortuu madoobo sharku u badan yahay. wa min shari nafaathaati fi lcuqadina waa dumarka, waxaan ujeedaa waa sixirka iyo qolyaha sixir ku shaqeeya. wa min shari xaasidin idaa xasadana waa xasadkii oo isagana dhib badan geysta. marka suuradda iyo birabbinaas iyo qul acuududa iyo maxaan ujeedaa muxuu qul wallah akhriskooda hala badsado markaad seexanayso, galabtii, habeenkii. xirsi xidhkay ka mid tahay. asbaabta waxaa ka mid ah iyadana inaynu qaadano asbaabta maadiga oo hay-aadka caafimaadka iyo muxuu ahay dhakhaatiirta iyo dadka khubarada ah ee waxyaalahan masaa'ibtan yaqaana. waxyaalaha lagaga badbaadayo maaha inaan dhayalsanno ma ah, waa inaynu qaadano. shareecadeena ayna amraysa asbaabta qaata. yani waxa weeyaan ama ha noqoto dadku ha kala fogaadeen, ama ha noqoto yaan laysa salaamin, ama ha noqoto muxuu ahaye hala taxadaro, ama ha noqoto ha laysnadiifiyo, ama ha noqoto asbaabta xanuunkan laysaga ilaalin karo waa in la qaato. intayna dhakhaatiirtu ina farin oo hay-aadka caafimaadku ina farin oo ayna dowladuhu ina farin ayay diinteennu ina faraysaa. caqiidadeennaa ina faraysa, kitaabkeennaa ina faraya, nebigeennaa ina faraya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. waxaan ogsoonahay haddaynu nahay mujtamaca soomaaliga ah inaynu dayacan nahay. waxaan ogsoonahay inaynu nahay dadka ugu fara badan ee isdhexgalka iyo wada fadhiisiga iyo bulshaawiga iyo noocan ijtimaaciga ah inaynu ugu badinno. xaaladani waa xaalad istinaa'iya,
waqti kooban way ilaahay tabaaraka wa tacaala uu inaga faydi doonaa xanuunkan. hala taxadaro oo asbaabtaasi hala qaato, yaan la dhayalsanin, yaan la fududaysanin, yaan lagu ciyaarin. si jiddi ah oo dadaal ah ha loo qaato asbaabtaasi laysku ilaalinayo. waxaan ugu dambaysiinayaa xanuunkani markuu dhaco waa musiibo dhacday, ee kay ku dhacday mooyaane kii aysan ku dhicin xataa wuu saameeyey. saameyntiisana waxaa ka mida noloshii oo dhan buu kala xidhay, yacni waxbarashadii buu xidhay, dadkii dhaqdhaqaaqii baa xidhmay, ganacsigii iyo dhaqaalii baa xidhmay, noloshii baa cidhiidhi gashay. ruuxuusan saamayninba adduunka waa yaryah. sidaas daraaddeed waxaa laasima inaynu kaashanno, sabirka kaashanno. oo masaladan ugu dambaysiinayo, markay masaa'ibtu dhacdo mowqifka ruuxa muslimka waa sabir. allah tabaaraka wa tacaala siduu lou sheegay qur-aanka kariimka, walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wa naqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir asaabiriin buu alla yihi tabaaraka wa tacaala. yacni waxa way cabsi, cuntadii oo yaraata, caruurtii oo lagaa qaado, masaa'ib guud oo dhacda. alla wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala, u bishaaree dadka sabraya markay masaa'ibtu dhacdo. aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inna lilah wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay bay u noqonayaan. ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun. ilaahay abaal iyo wanaag iyo ammaan buu u sheegay tabaaraka wa tacaala. marka wastaciinuu bisabri wasalaa, sabirka kaashada, cibaadaadka kaashada, xagga ilaaha loo cararo. fafiruu ila allah. caalamkani hadduu ilaahay usoo noqon lahaa, isgaran lahaa, ilaahay musiibadan waa faydi lahaa tabaaraka wa tacaala. sidaas daraaddeed ilaahay aan usoo noqonno, xagga ilaahay ha loo cararo. innagaa ilaahay naqaana. gaaladaasi intooda badan ilaahayba ma yaqaanaan, way wareersan yihiinoo waxay sameeyaan bay garan la'yihiin. laakiin innagaa ilaahay naqaane, inaan ilaahay usoo noqonno, toobad keenno, ilaahayna tabaaraka wa tacaala aan u barino inuu ilaahay khalqigiisa iyo addoommadiisa uu dhibkaa ka qaado. marka aan sabirno. kii dhintay kii laga dhintay sabir waa inuu kaashado. kii muxuu ahay dhibaata ka soo gaadhay sabir waa inuu kaashado. kii gaajooday waa inuu sabro. kii muxuu ahay si uun muxuu ahay saamayn ugu yeesha waa inuu sabro. waxaadna ogaataa ruuxa mu'minka ah ee xanuunada noocan oo kaleeta u geeriyooda waa shahiid. leanna xanuunada halista ah ruuxa muslimka hadduu u geeriyoodo waa shahaado weeye, sida nabigeena sal lla lay wasalam ka sugan akthar min xadiid. ruuxa muslimka ah ee u xanuunsada ee ka badbaadee ka fayoobaadana isaguna sidoo kale ajru shahiid buu leeyahy. ruuxa muslimkaa ee dhib ka soo gaadhay ee dhibkiisa ku sabrana nebigu wuxuu yihi sal lla lay wasalam ajru shahiid buu isaguna leeyahy. dhanka kaleeto waa dembi dhaaf, waa mukafiraad. sidaas daraaddeed maslaxo badan baa ku jirta dhinacaa marka laga fiiriyo. marka waynu ku sabraynaa, waan dulqaadanaynaa, ilaahay baan u noqonaynaa, rabbi baan ku aqoonsanaynaa. ka sii fiican haddaad sabirka rido aad gaadho ood raalli ku noqotona ka sii fiicanba. ridahaasi waxaa ka sii fiican inaabad ka shukridaba, inaad ka shukrido. say ku imaan kartaa? ilaahay tabaaraka wa tacaala musiibo kasta oo ruuxa ahlul iimaanka uu ku rido oo ku timaada darajaad uusan gaadheen oo camalkiisu uusan gaadhsiiyeenoo jannada ana wuu ku helayaa. dunuub fara badanna ilaahay waa kaga dhaafayaa. oo haddaan musiibadaasi ku dhici lahayn aakhare loo qabsan lahaa oo laga yaaba in loo cadaabi lahaa. sidaas daraaddeed waa dembigaagoo la dhaafayo, waa lagu daahirinayaa. dhanka kaleeto darajaad jannaad ku helaysaa iyo wax qaali oo ka qiimo badan. sidaas daraaddeed sabir iyo ride iyo shukri masaalixda ku jirta markaad milicsatood ay kuu muuqato, shaki ma laha alxamdu lilahi baad leedahay. alxamdu lilahi aladii alxamdu lilah calaa kulli xaal. yacni xaalad walba ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ku mahadsan yahay. marka sabirka ha la kaashado, ilaahayna ha loo xidhnoqdo tabaaraka wa tacaala. asbaabta taxadarka ah, kuwa shareecadu inoo jidaysay ee maadiga ah iyo kuwa shareecadu inoo jidaysay ee macnawiga ah, intaba ha la qaato. ilaahayna tabaaraka wa tacaala aada ha loo baryo. ilaahay tabaaraka wa tacaala musiibadaasi allah inaga dulqaado. ilaahayna tabaaraka wa tacaala caalamka ilaahay tabaaraka wa tacaala musiibadaasi ha ka dhigo rabbi tabaaraka wa tacaala midii ay ilaahooda ku aqoonsan lahaayeen. ilaahay tabaaraka wa tacaala hanuun ha uga dhigo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ku hanuuniyo
inay rabbigoodii abuurtay ee irsaaqayey ee gacanta ku hayay ee dili doona ee soo saari doona oo la xisaabtami doona allahooda inay aqoonsadaan musiibadaas ilaahay tabaaraka wa tacaala ha uga dhigo oo muxuu ahayey ilaahay tabaaraka wa tacaala hidaayaya hanuun ha ku siiyo dadka mu'miniinta ana ilaahay tabaaraka wa tacaala iyadana naxariis allah ku siiyo dembi dhaaf allah ku siiyo shahaado allah ku siiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala masaa'ib kaleetoo ka daran midii ilaahay nagaga xijaabo allah ka dhigo iyadana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha inaga qaado hana inaga badbaadiyo intii u dhimatayna allah u naxariisto inta u jiran ee isbitaalada u taalana ilaahay ha ka caafiyo hada billahi tawfiiq